waxaa galabta sharaf weyn noo ah inuu madasha marti noogu yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed uu marti noogu yahay madashan galabta inta aanan ra'iisul wasaaraha hadalka siinin oo aan iska bilaabanayna adiyaalaymo waxaan jeclahay laba kelimo oo kooban inaan ka iraado madashan iyo sababta loo sameeyay iyo barnaamijkeena galabta sida uu dhici doono marka hore madashan waxaa loo sameeyay madasha wada tashiga waxaa loo sameeyay maxadku uu sameeyay in ay u noqoto meel ay ummadda Soomaaliyeed iyo madaxdoodu isku weydaarsadaan ra'iisul wasaare aragtiyada ku wada hadlaan maadaama aysan shacabka Soomaaliyeed marar badan madaxdooda aysan si toos ah ugu lahayn galangal in meeshan oo kale madaxdu ay timaado aragtidooda ay gudbistaan dadka Soomaaliyeedna tala iyo tusaale iyo su'aalo ay halkaas isku weydiistaan barnaamijkan galabta wuxuu socon doonaa insha Allah ilaa iyo maghribka muddo ku dhow waxaan ku bilaabanaynaa hadal oo furitaan ah oo uu ra'iisul wasaaraha aan siin doono muddo 15 daqiiqo taqriiban ah intaas ra'iisul wasaaruhu uu ku soo gudbiyo barnaamijkiisii oo ku saabsan kelimadiisa oo ku saabsan 8 bilood intii ku dhaweyd ee uu hadda ra'iisul wasaaraha ahaa wixii xukuumaddiisa u qabsoomay wixii aan u qabsoomin caqabadihii ka hor yimid fursadihii la helay kuwii laga faa'iidaystay iyo kuwii aan laga faa'iidaysan inuu nala wadaago kadibna waxaan u gudbi doonaa haddii aan leedmo su'aalo adinka iyo dad kale oo Soomaaliya halkan aan nala joogin laakiin aan xiriir kula leenahay baraha xiriirka bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka oo aan ku sii sheegnay su'aalo badan soo diray dadkaas su'aalahooda aan isku dayi doonaa insha Allah inaan ka qayb galno laakiin kuwiinana aan ka qayb galino iyo waxaad aragti u haysaan ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaare soo dhawow kelimadaada insha Allah inaad nala wadaagto ayaan jeclahay بسم الله الرحمن الرحيم أول ما السلام يا سلام ديران أنا وأدعو فرح سنقولان كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن مرينا يا خيارتها كان فريدة قبلها كان فريدة هذا واحد الصبح أنا الشيء يودل كان كقرصون نجري إن بدنا هذيك كم ده أنا بقول حوار سنتين marka waxaan u maleynayaa fadhigan mudnihiisa inuu yahay aan sheekaysano bal waxa jira iyo iska warsan oo nin walba wax uu og yahay ha soo gudbiyo marka waxaan soo gudbinayaa waxa dilo ogtihiin diga ogtihiin marka waa waxa ogtahay ku sheega way dalkan waxa kaga qarsoomay waan ku faraxsanahay in dadka aan galabta la kulmahay in dadka xoogaalka ahaa oo runtii hawsha dalkan muddo fara badan ku soo jiray oo haddana ku jira marka waa hadal inoo dhaxeeyo marka inta ka gudbo kelmadda dawladda iyo xukuumadda iyo mararka qaarkood waxaan isiraahdaa ma waxay u baahan tahay inaan dib ugu yar noqono fasiraadeeda iyo sida xaalku yahay inagu dawlad isba ku jirnaa weli dawladii ma dhamaystira waxaan u maleynayaa dalalka oo dhan adduunka inay soo mareen marxalad shacabkaas inta uu fariistay oo qaabab u wada tashaday uu markaa yiri sidaan ku wada dhaqmi karaa oo ku noolaan karaa oo adduunka kula shaqaysan karaa oo inaga dhexdeena aan ku wada shaqaysan karaa inaga dawladii noo jirtay waxay ahaydba way naga burburtay marka intii muddo ayaa wax institution oo dhisan aan jirin haddaynu marka talo dhowr sano ugu dambeysay yeynu talo isu keenaynaa marka taladaas waa talo noo wada dhaxaysa marka inagoo dhan baa hadda waxaan ku jirnaa marxalad dawlad dhis ah marka shaqadii un baa qofba dhinac ka hayaa hadda wax noo dhamaystiran haddaad hadda eegto dawladdu waa shuruuc waa siyaasado waa institutions waa resources ama dad ha noqdo ama lacag ha noqdo ama wax kale ha noqdeen hadda taynu legislationska naga iyo shuruucdana haddaan yagleelaynaa ama qaar hore aan doorka ka jafeynaa
siyaasadihii warhubkaan hadda bannaanka socda maxaynu ka samaynaa waa inaynu ka tashnaa niraana ma joojinaa seebaynu manage garaynaa marka wax hadda noo samaysan ma jiraan waxaynu hadda samaynayno dhaqaalaha cashuurba ma ururino intaa dekada iyo waxa naga soo galo ma ogiye marka waa inaynu ka tashanaa niraana qof ma isaga qaadnaa sidee baynu ugu gudbi karaa in afgooya canshuur bixiso canshuurtaa la keeno balcad inay bixiso baydhabo inay bixiso waad ogtihiin oo dalka marka wixii oo dhan waa wax hadda yagleel ah marka sheekadu waa sheeko noo dhaxaysa laakiin weli magacii dowladda waa wadanaayo wixii annaga dhinaca iyaga ah waanu ka waxaynayna laakiin waa wax aan wada leenahay waxaan u arkaa haddaan saamir yar sameeyo Soomaaliya waxaa ku dhacay burbur aad u fara badan oo dhinac walba ah laakiin burburka ugu weyn qofku meelaha kale oo dhan haddii uu ka dhaawacmo ama wax kaga dhacaan waxaa laga yaabaa inuu ka kabto laakiin madaxa iyo wadnaha iyo meelaha maartay aan laga kaban karin weliba madaxa laana qofku waxaa la yidhaahdaa bini aadamka maskaxdu ka dhintaa innaga meesha aan ka burburnay runtii waa siyaasadda weeyaan dowladdu waa siyaasad iyo dhaqaale iyo bahalkii weey siyaasadduna waxaan u arkaa inay tahay seebaynu u wada dhaqanaa seebaynu u wada jiraa halkaa weeye meesha aynu ka burburnay haddii marka Soomaaliya gobolladeeda iyo magaalo madaxdeeda iyo qaab siyaasadeed oo aynu isku fahamsannahay aynu dhamaystirno oo aynu helo waxaa weeyaan marka meelaha kale dhaqsay u shaqayn karaa tusaalooyin baan xoogaal baatiina waxba kala qarsanayna tusaalooyin baan soo qaadanaynaa dowladda federaalka hadda waxay ka shaqaysaa wasaaradda waxbarashada haddii aanay jirin siyaasad la isku waafaqsan yahay qaabka wasaaradda waxbarashada uga shaqaynayso baydhabo ama puntland uga shaqaynayso ama beledweyne uga shaqaynayso ama kismaayo uga shaqaynayso ma shaqayn karto wasaaradda marka waxaan malaynayaa arrinta ugu xooga badan ee hortaala waxaa weeyaan inaynu dhisno siyaasad daleed xaqa qaybsanaato oo mid federaal ah iyo nidaamka gobollada iyo waxaa noqdeen oo keeni kara dadku inuu kala jihaysmo hay-aduhu inay jihaysmaan taasuna inay noqoto mid dadka ka timid marka waa waxaynu ugu yeero inclusive politics oo ah siyaasad dadku ka qayb galay marka taas siyaasaddaas way soconaysaa ilaa qofka codkiisa uu uga qayb galo ama si institution uga qayb galo baarlamaankii iyo bahalkii gobolladii in ay maamulaan ismaaniyo ilaa ay tagto in qofka codkiisa iyo voobkiisa qof kastoo Soomaali ah uu siyaasadda uga qayb galo marka qayb weyn weeye kulleyba fasiraadeeda wadaysaan waxaynu ka shaqaynaynaa waxaa weeyaan federalism waxaynu ka shaqaynaynaa waxaa weeyaan constitutionka inaynu dib u eegno si uu u noqdo constitutionka mid dadkoo dhan ay raalli ka yihiin oo waqtigii la xadiday oo 2015 inaynu referendum gelino oo dadku uu ogolaado waxaa kaloo jira dhinacii doorashooyinkii iyo waxaa in la qaban qaabiyo marka hawshaas waa hawl ay dowladda ku howlan tahay oo aynu u naqaano inclusive politics oo ka kooban federalismka oo ah maamuladii gobollada ama dowlad goboleedyadii maadaama dastuurkana uu qeexayo inaan dowlad federaal aan nahay iyo kii federaalka iyo sida ay wada shaqaynayaan iyo roles iyo responsibilities ay kala leeyihiin iyo waxaa iyo dee muxuu ahaa in dastuurku waxaasoo dhan uu si fiican u qeexayo oo dastuurkeenu wuxuu ahaa kamilgaad buu ahaa dastuur dhamaystiran in la sameeyo waxyaabo badan oo hadda runtii ugu mudnaa si fiican loo cadeeyo iyo inaynu helno qaabkii iyo sharcigii iyo nidaamkii u ogolaanayay in ninka muwaadinka ah uu codkiisa u dhiibto
وجد صعب كنت عن بلوني كل يوم في سؤاله اليوم سي قيح دونا لكن هذا بربر حسوق على أمني مركا نرشي هيئة نرشي دولة يأتي الشخص كهيبة وحيقولين خطر بوجران أمن الدرب مركا أيضا dib-u-dhiska waa qayb kale oo runtii weyn oo noo taala waxaan u malaynayaa amni markii la yidhaahdo dadku qaar basiba u fasiraan anigu markaan sida ballaaran u fasiro horta amniga qofka laftigiisa ka bilaabanaysaa anigu haddaan jaranjarada aan iska tuuro waa amni darro laakiin amni darro maaragtay lii keenay ma aha bulshadu haddaysan amniga ka shaqayn adduunka ma jirto meel qof kasta oo muwaadin ah qof la raaciyo oo la yidhaahdo qofkaasaa ku ilaalinaya qorina lagu ilaaliyo laakiin bulshada waxay goosataa inaysan ogolaanin waxyaabo amni darra inaysan ogolaanin haddii tug la arko inay soo qabato oo dowladdu u soo dhiibto marka burbur muddo fara badan na soo haystay ummadeena waa la cabsi geliya way cabsanaysaa marka amni darrada waxaa weeyaan qofkii amni darrada waday nabadiidka ama argagixisada ama baalkiga wuxuu ku raaxaysanayaa ummad waxba anagu kala qasanmayna afkiibaa jubda gabay oo kale ah oo baqanaysa marka waa in baqdintaas dadka laga saaraa waqti bayna qaadanaysaa iyada lafteeda in laga saaro ugu dambeyntii waxaa weeyaan waa in cudud amnigaas xafidaysa ay jirtaa oo ah dee ciidamada amniga iyo shuruucda lagu enforce garaynaya amniga taasuna waa naga burburtay oo waqti bay qaadanaysaa waad garanaysaa kharash bay qaadanaysaa waqti bay qaadanaysaa laakiin runtii way socotaa inta markaa aynu waxyaabahaasoo dhan bulshadu inay si fiican uga qayb gasho ciidamada amniga inay noo dhismaan waanu la kulmaynaa challenges amni darra oo taas xoogaal baynu u nahay waa mid aan maalin walba u noolnahay laakiin waxay u baahan tahay in dowlad iyo dadba iyo aqoon-yahan iyo civil society mar walba laga wada hadlo oo laga sheekaysto oo xigmad laysku kordhiyo si aynu tallaabo u qaadno marka waxaan taa ka leeyahay waxa aad keligayeen u hadlaynaysaan ma aha laakiin waa inaan platformkii consultationskaas iyo wadatashigaas iyo ku dhalan lahaa aynu samayno mararka qaarkood amnigii iyo dhaqaalihii waa isku xiran yihiin oo haddii dhaqaaluhu wanaagsan yahay amnigu waa wanaagsananaya haddii amnigu wanaagsan yahay dhaqaalihii waa soo jiidmayaayo dadku waa invesgareynayaan dalkii ayadana waa in dhaqaalihii laga shaqeeyaa markaa runtii xukuumaddana xil baa ka saaran shacabkuna aada buu dadaalayaa oo waxaad moodaa dalkii in investmentka weliba soomaalida somali driven investmentka inuu soo kordhayo oo dadkii diasporada ahaa iyo dad badan ay dalka kusoo noqonayaan laakiin ayadana waa inaan u sahlnaayo facilitation sameynaa wasaaradaha qaabilsanna arrintaas way ka shaqeynayaan horumar runtii door ahana way ka gaareen marka ugu dambeyntii waxaan isleeyahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo aanu leenahay dalkan waxa laga qabto oo ajendaha waaweyna noloshu way soconaysaayo maalin walba xun baa noqonaya priority mudnaan yeelanaya laakiin maanta inta waxaa weeye siyaasadda iyo amniga labadaas ayaa ugu muhiimsan iyo dhaqaalaha oo hade kaabaya labadaas inay shaqeeyaan waxaan marka rabaa in aan idin sheego dowladdu xukuumaddu 6 bilood weeye hadda inta ay jirto waqti yar maaha waqti dheerna maaha 6 bilood oo 2 bilood iyo waxa ay qaadanayso miiska iyo kursiga iyo wasiirka iyo in iswaafajiyo haddii ba la iswaafajin karo mararka qaarkood oo dhaqaaluhu u saamaxayo
laakiin runtii dadaal ayaa socda wax perfect ah ma jiraan anigu waan jeclaan lahaa inaan mar walba ka dheeraynayno intaas laakiin dadaalku waa uu socdaa waana waxaad ka qayb geli doonta aan jeclahay inaad ka qayb gashaan wax nala xoojisaan wax nala ridaan wanaagsan aad iyo aad baad mahadsantahay mudane ra-iisul wasaare kelimadaas kooban ee ku saabsan waxqabadkiinii muddadii aad 6 bilood ahayd siyaasadda soomaalida ra-iisul wasaare 6 bilood waa muddo aad u dheer iyada dhanaaba cyclekeedu iska gaaban yahay marka dhinac marka laga fiiriyo waa dheer tahay aadna kaaga mahadcelinayaa walaalayaal hadda qaybtii kale ee barnaamijkeena ee muhiimka ahayd ee aan ugu talagalnay madasha oo ahayd inaad dhammaantiin ra-iisul wasaaraha su-aalana weydiisaan ama aad fariin haddaa u haysaan u gudbisaan ayaan gelaynaa haddii alla idmo waqti ilaa taqriiban saacad iyo xooga ah ayaan haysanaa haddii alla idmo iyo bar ku dhow waxaan rabaa qaabka aan su-aalaha u weydiinayno inaan isla garanno waxoogaa yaro rules ah rule number 1 wuxuu yahay qofka su-aasha weydiinaya waxaan ka codsanaynaa magacaaga iyo haddii aad organization ka socotid ama aadan ka socon laakiin ugu yaraan magacaaga inaad noo sheegtid haddii aad su-aal ama fariin wadidna fadlan 2 daqiiqo inaanay ka badan si dadka kale walaalaha ah aan u gaarsiino dabcan isu sheegi mayno in aan ixtiraamno oo xataa haddii la kala aragti duwan yahay su-aalaha iyo commentsku ay ixtiraamka ku salaysnaadaan microphone la dhiibi doonaa ma hadda duu joogo waxaan jeclahay microphone kala yaala in aan microphonadaas dadka u geyno waxaa kaloo jira ra-iisul wasaare sidaan hadda ay sheegay dad badan oo su-aalo nooga soo diray baraha xiriirka bulshada ee Facebook iyo Twitter iyo iyagana aan hayno anoo ka faa'iidaysanayo laakiin jeernimadeeda sessionkan anaa rabo marka hore inaan dhowr su-aalood oo kooban ku weydiiyo anagu maxad ka shaqeeya daraasaadka siyaasadda hadda 3 area si gaar ah u danaynaynaa mid adaab hadda waxoogaa ka hadlay oo ku saabsan xagga amniga midna waxay ku saabsan tahay arrimaha federaalka iyo dhismaha gobollada iyo wixii la xiriira midda ugu dambeysana 2016 saddexdaas ereyadan danaynaynaa su-aalaha hadda aan Twitter iyo Facebook ku aragnayna kuwaasay u badnaayeen midda hore amniga ra-iisul wasaare 6 bilood hadda aad xukuumadda aad u dhisnayd waxaan u malaynaa qiimeynta shacabka Soomaalidu inay u badan tahay amnigu intuu ahaa 6 bilood oo ka horreysay iyo 6 kasii horreysay marka loo barbar dhigo inay 6 bilood amnigu uu aad moodo inuu hoos u sii socdo qiimeynta ummadda Soomaalida oo annaga aan ku dhex jirno 5 xildhibaan oo Allah u naxariista xildhibaan Deero ugu dambeeyay xildhibaan Saad Cali ka horreysay xildhibaan Xeyd uu kasii horreeyay iyo 2 xildhibaan oo kale oo aan hadda magacooda xusuusan ayaa la dilay muddadaas sanadkan sidii u bilowday saakay 3 dumar oo jid nadiifinayo oo magaaladan ka shaqeynaya oo shaqo iskaa wax u qabsa ayaa qarax inta loo dhigaa 3 ku dhinteen 8 iyo meelahan oo ku dhaawacmeen haddaanay ka badan colaado ayaa kasoo cusboonaaday meelo dalka ka mid ah shabeellada hoose noogu dhow shabeellada dhexena sankeeda maalmaha waxbaa ka jiray hiiraan waxbaa ka jira bal dhanka amniga ma qiimeyntaas ummadda dadka Soomaalida ah ay u badan yihiin hadda ma la qabtaa tallaabooyin la taaban karo maxaa laga qaban karaa waan ognahay muddo hadda bil ku dhow waxaad bedesheen 2 taliye ee booliiska iyo nabad sugidda dabcan waa muddo kooban ka hor laakiin maxaa kaloo tallaabooyin oo maanta aad noo sheegi kartaa adoo markaad qiimeyso tallaabooyinkan oo dhan waa santahay caanka intaad sheegtoo dhan runtii waa wax sidaas loo arki karo waa run aad bay nasiib darro u tahay inaynu dhuminay dad badan oo muhiim ah 5 xildhibaan oo muhiim ah oo qayb weyn kala jiray siyaasadda dalka iyo sharci dejinta dalka way dhacday in dad badan la dilay waxaan aad iyo aad u wareystaa dadka xildheerayaasha ee amnigu xildheer isbedelada jira marka aad si individual u fiiriso micro level markaad u fiiriso waxyaabo badan oo dhacdooyina waad arki kartaa oo negative ah laakiin markaad macro level u fiiriso dalku waa ka nabad badan yahay 2 sano ka hor sidoo ahaa iyo ka hor sababtu waxaa jirtay inay dalkaba haysteen dadka
marka wixii ku dhibanahaya iyo waxaan ku dhibanayn laba ogeeyba ayaga la haystay dalka ciday rabaan bedilayeen ciday rabaan bay waxaynayeen sheekooyin fara badan waanu marka maanta dalka waa laga haystaa oo inta badan dalkii waa laga haystaa waxyaabaha lagu qiimeeyo amniga ayaa waxay tahay dadka sida uu dareemayo iyo sida maalgelinta ay u socoto iyo sida shaqada ay u socoto waxa dadkii ku soo kordhay dadka dibadda ka imaanaya dib u soo noqonaya ku soo kordhay waxaan weydiiyaa wala saaxiibada siyaasiyiinta mar waxaa jirtay dadka wax ku oolka ayaga target ku ee dalka jooga uu aad u koobnaa intoodana madaxtooyada iyo agaarkeeda ay deganayeen dadkii waa baahay meel kasta ayuu degan xogaa isdhigasho iyo xogaa looseness oo dadku nolol normal inay ku jiraan oo kala ayaa soo baxday iyagiina waxay lumiyeen nimanka argagixisada waxay lumiyeen dhulkii ay controli jireen oo ay haysteen marka way bedeleen tacticskii way bedeleen oo marka waxay noqotay inay inta dad ku soo dhex dhuntaan dadkiiyo nolol caadi isaga jira in ay marka beegsadaan waxaan kala hadlahayay xildhibaanada muddo la soo dhaafay iyo saakaba in dagaal uu dalka ku jiro waliba dagaal uu ku jiro nimankan desperate ay sii noqonayaan maalin marka dambaysa waxay u jeedaan inay magaalooyinka luminayaan waxay u jeedaan meelihii ay dakhliga ka helahayeen inay luminayaan يعني مرسي هريس بكارو وحي أهيد مال أيو لي أي أحد وحن قصنا هذا إن مقالوين في مهم كهايو لقى السهر مركا منك قفك الله تقال لهم يسوع تقال بكوجته سكستو وكو قاعد كار يا سكستو وكاجا أرجوسان كار وكو قاعد يوم كار أرجوسان يقول لي ما بعرفت إنجليز اللي هذا dying horse the last kicks the worst marka dadku ay desperate noqdaan oo dhimanayaan xaraantida ugu dambaysa waa mid ugu kulmiyo waxaan ka badan marka waxaad ogaataan in aad dagaal ku jirtaan qofku dagaal hadduu ku jiro cadowgiina weli aan la kala faaruqin oo waxun ka dambeeyaan waa in taxaddar dheeraad ah la sameeyaa marka ciidamadii amniga ayagoo dadaalaya oo aad u dadaalaya laakiin noodka dadka ayaa weliba siyaasiyiinta ayaa waxaan isleeyahay in wax laga bedelo oo iyaguna ay more security conscious ay ahaadaan leanna dalkii dagaal buu ku jiraa dagaal baan iclaaminay dagaal baan ku jiraa dadkii magaalooyinka laga qabsaday oo dhan oo marka hore si conventional u diri jiray oo dhihi jiray aagaanaan xiranayaayo maaragtay hubkayga ayaan la fadhiyayaayo controlaya ayaa hadda baahay oo markaa waxay isu bedeleen inay argagixiso rasmi ah ay noqdaan marka haddaad dhinaca ka eegto waa sidaas laakiin waxaasu waa mid ka imaanaysa isbedelka fundamentalka ee ku socda waxaad kaloo arkaysaa ficladooda waxay beegsanayaan meesha isbedelku uu ka socdo dowladnimadu ka socda isbedelka haddii dowladnimadanadu ay sal yeelato awood baan u yeelanaynaa in dagaalkan sii wadna awood baan waxay doonayaan inay joojiyaan oo ay niyad jabiyaan dowladnimada iyada saa weeye waxa ay hoggaanka sida xildhibaanada ay u beegsanayaan marka ficilka ay samaynayaan way ka muuqataa xanuunka haya way ka muuqataa ficilka ay samaynayaan in ay qof masaajid ka soo baxay ay dilaan way muuqanaysaa inay desperate yihiin oo ay ka baxeen bini aadamnimadii iyo xaqlowrkii iyo baalkii iyo inay gabar dilaan berimageydadii inay dilaan oo iscudla dhaafaynin waxaad ka garanaysaa desperate siday u yihiin sida niyad jab ay u yihiin nafla caari siday u yihiin marka anigu malihii wax ma dhicin wax waa dhaceen waana filaynaa inay wax dhici doonaan sababta waxaa weeyaan weli duruufihii way taagan yihiin ma inkirayno waa sax weeye laakiin adkaysi baa naloo ka baahan yahay dal dagaal ku jiraan nahay
dal dagaal ku jira marka maxaa qofku markuu dagaal galo maxaa dhaawaciisu gaaray iyo maxaa xabad liigu soo turay iyo maxaa u dhintay midna ma jiraan waan dhimanaynaa aniga xafiiskayga wada soo waray waxaan u malaynayaa 5 daqiiqadood ka hor ayaa ka baxay meesha dagaalka dhacay waxa weeye waa natural waxa weeye waa nagaadayaan madaxtooyadii soo galayaan waa dad ku dhici jira kula mid ah ku eg Soomaaliduna hadda wad garanaysaan qaraabanimada iyo waxyaabo badan iyo saaxiibtinimada marar badan qofka waxa ka dhigtaa loose uma aanan baran dagaal warfare ka noocan kale oo dagaalka noocan kale oo nin walaalka oo xalay kula seexday ama gabadhaadi ama walaalka ama adeerka oo aad ka filayeen oo maanta taad maanta qalad u qaaday oo leedahay seed u dhaqaalaysa oo kugu noqon kara qofku dilay marka waxaan islaahay inagoo dhammaan aqliga soo gelina dagaal xun oo qaraar oo dib badan baan ku jiraa waa inaan marka kooda aan qaabka aan u dhaqmayna aan wax ka bedelaan marka labaad waa in talo keenayo aqliga ay isku darayaan aqli lambe waan ka shaqeynaa aad baa mahadsantahay ra'iisul wasaare laba su'aalood oo kala raacsanaya kadib dadka aan u furayno su'aasha labaad waxay la xiriirtaa arrintan federaalka iyo hannaanka federaalka iyo xiriirka arrintaas ra'iisul wasaare dalab xoog leh ayay yeelatay waxaa ugu dambeeyay dhowr maalmood ka hor markii aad heshiis saxiixdeen oo gobollada dhexe galgaduud iyo mudug waxbaa la saxiixay puntlandna ku dhawaaqay inay xiriirka idinka goosatay xildhibaano u yeelatay qaaraaba ka tegay hadda garoobay horey waxaan ogeyn halkan shabeellada hoose baa iyo boqol iyo jubbooyinka oo 3 iyo 2 ay isdhinac socdeen hiiraankii shabeellada waa dhiman tahay bal arrintan dowladdu maxay ay ka damacsan tahay dalabta weyn yeelatay ee federaalka ah u abaarideeda si gaaran adoo weliba case puntland hadda ugu dambeey soo qaadanaya waxaan maranayaa qurux weyn bay yeelatay dalab weyn ma yeelan أنا كل يوم فرحسن ضد بدن وكل يوم فرحسن وأنا أولا النقطة فدرالك معها وح حكومة دولية والسيد ووح constitutional والدستور كنا كل كان ومدة الصومالية أي مرة قالت إن الصومالية أي فندون دولة فدرالية مدة صوت الحاسوي حدي أدوي جسارة الحكومة دولية شخصية أنا أقول لا تهري فدرال ككلمة دول مركي إنجليز نقدر نقطة يوجه كليه تهري الصومال الفدرال واجد عليه سؤال ما بيلا سؤال واحد هذا سؤال بين واشرت لكن بين ما قال وأود جلته وأنا كذا جلته وأود جلته ويونايتد هذانا قلوا الريسبونسبيلتيز بيلي معناه وحويان وعدد أيقو وذا جرا هذانا كل رقم كرا نظاميو كلا دول فدرال كوح كلا معها وسلام وحويان إن دولة المدى يدول بالجرا مثل يعني لو دويو دك أو دك أيقا شو تودا يقانين أنت مركز إسوا قلبا أيقو waxa gaarka u ah oo aan umada kale la kala dhaxayn inay maamulaan taaminaad waxa weeyaan waa marka koobaad la khafiifinaya oo culays isdul saaraa yaa la qaybinaya waa marka labaad waxa weeye ownership ama lahaansho ayaa dadkii ay gaarayaan oo arkayaan waxaan iyagu inay leeyihiin marka dusha looga keeno marka maadaama dawladnimada inaga burburtay muddana dadkun riixriixa ay umadu goosatay in qola kasta intii isku gobol ahaba ay ayagu ay nidaam hoose ay samaystaan kaba duwan maamul goboleedka laakiin maamul goboleedka jirjiray nidaamka jirjiray wuxuu ahaa mid dusha laga soo magacaabo tan waxa weeyaan tashan oo anagu aan sano sida aan jidadka iyaga u samaysanayno iyo sida aan qanaacada isaga buufinayno iyo sida aan waxbarashadana u samaysanayno aynu yeelano oo cid kale yeelan ka sugin dee wax dadkooda ka dhaxeeyana waa jiraan oo dowladda federaalka ay leedahay oo national agenda marka anigu waxaan u arkaa federaalku ma aha wax hadda
aan ka guurayno nidaamkana waxaa weeye nidaamka dowladda inaan sii kala macnayno qof walba mas-uuliyad la yaqaano ay fuusho oo markaa wax meel dhexe ka baxa qolooyinkii gobolladan ay ku hadleeyaan dowladda dhexena ay ka gaari weydo inaysan waana wax dastuurka Soomaalidu ay goosatay anigana aad ila macno fiican runtii ma jiri karto wax kasta wax boqolkiiba dadku oo mas'uul waafaqo yani xikma rabbaaniya weeye dadku inuu kala duwanaado kala fikirkanaado laakiin hadba waxaa la fiiriyaa wixii maslaxada ku jirto dadka intiisa badan isla garanayaan ayaa la fiiriyaa marka gobolladaas South West la yiraahdo annaga xukuumadda iyada waxay u timid ayadoo dadku isku khilaafsan yahay oo la kala fadhiyo oo aad loo kala fadhiyo khilaafkaasoo weliba mar gaaray in xabada la isku rido oo shacabka kala qaybiso oo ciidamadii nabadgelyada ka shaqeynaysa ay kala qaybiso annagu waxaan ku dadaalnay inaan fududayno inay meel isugu ururaan waxna ay goostaan ugu dambeyntii waa goosteen waa jiraysaa dad diidan haddana markii la dooday Soomaalidu marka hore wax ku aad yani la isugu heshiiyay laakiin wax la yiraahdo dynamic inclusivity marka dambe dadku waa qanacayaan waxaa mudaa in ilaa xad weli waa jiraan qof aniga kama qaybgelin aniga lagama qaybgelin shalay talbaamaha waxaan dhegeysanayay qabiilo Soomaalidu marka qabiil ku tagaan wax geed inta la soo keeno waa ka badan tahay wax sidaas oo kale ah yani dadku meel walba isuguma imaan karo haddii guddi la yiraahdo hal magacaabo guddigu qof kasta kama qaybgeli karo in kaliya ka qaybgasho waa waxaanu baran doono runtii inaanu niraahno hebel baa wakiil iyo anigu aan gadaal u istaago Puntland waa soo gaartay statementka meesha ka baxay waana ka wada hadalnay waxaadna midaan suu tafaahum inuu ahaa oo aan si fiican la isu fahmin waana hadda waa la isfahmay wada hadal waa jirta waxaan rabaa inaan caddeeyo xildhibaanada ka tegay Nairobi kuma tegin waana jeclahay in arrintaas la maqlo kuma tegin yeeritaankii loo yeeray ama qofku uu yeeray kuma tegin safar waxaa jiray aniga iyo qorshaysnaa oo aan Puntland ku tegi lahaa bisha 8 marka mar horaan qorsheynay inay advance party ay noqdaan inay iga sii horumaraan oo koox siyaasiyiin oo aan lahaa runtii waxyaabo badan federaalka iyo Puntland ka wada hadlayaan xafideeyaan ayay ahayd shalayto annaga ayaa ka shaqeynay inay baxaan mana ahna ku saabsan waxay mid u qorshaysan marka wasiirka ma tegin nimankaas hore ugu qorshaysan ayaa tagay cidii hadalkaas wax kala jirana way wixii karaan way weydiin karaan marka waa fasiraad weeye nimankaas inay xagga ku tageen arrinta suu tafahamka aad raadinaysaa oo adeegay Puntland ma noocday kartaa fahamka adigu oo la jeedeen mudug iyo galguduud markaan lahaydeen ma koonfurta mudug iyo la jeedeen mudug oo dhan iyo la jeedeen madaxweynuhu toos ayuu uga hadlay maalinkii waana la maqlaayaan malaynayaa markii khudbadu ka jeedinayay markii la saxiixay wuxuu yidhi arrintan ma saameynayso mana xaqaadayn doonto Puntland jira ma saameynayso wixii dadka iyagu ay ka wada lahayaan waa goonidooda laakiin dowladda federaalku ma saameynayso Puntland nabadgelyadeeda iyo dhulka ay joogto iyo maamulkeeda ma saameynayo madaxweynuhu si toos uga hadlay isagaana oday dalka oo dhan waa aniguna waafaqsanaa xukuumadda waafaqsan aad baa mahadsantahay su-aashii ugu dambaysan weydiinaya waxay ku saabsan tahay 2016 iyo waxa dhici doona hadalkaagii markii aad bilaabaysa waxaa ku jirta inaad tiri waxaan ka shaqaynaynaa sidii dalkan ay doorasho uga dhici lahayd 2016 laba sano ayaa ka dhiman maanta xilligaas August ayay ku beegantaa taqriiban labadaas sano ra'iisul wasaare marka la fiiriyo aad loo qiimeeyo xaaladda amniga waxyaabaha dhamaystirka u baahan ee wadaqabyada ah ee dastuurka ugu horeeyo ee arrintan federaalku ay ka mid tahay ma kula tahay markaas si dhaba uga fikirto in doorasho ay dalkan ka dhici karto caynta horta midaan isla ogaano
arrintaas waa constitutional oo yacni go-aan dalku uu gaaray bay ahayd oo in doorasho 2016 ay dhacdo marka mid anaga dowladda way liftay ma aha laakiin waxaan malaynayaa waa bartilmaameed ay macquul tahay inaynu higsano لأن أدونك وح open ended نقول كره مجرد قفنا وإن هذا إلهي بنتلا صارنا يا لكن وحنا قبلنا الجار مركب أخينا هذا في عم بالهي وأنا كل شقينا وحن سلايا هي أنت أخين حكومة اللي بطالة ما لكن حكومة دبي وجامعة إنسان وأخين برلمان كبطالة وأخين شعب كبطالة إن أي أرنتاس كذا بيان وأنا أرن مصلحة الموضوع لكن حياة بدنا اللي في قلنا إن المجال كرو أيام الله مركي أنا بلا بين الإصبحان دولة قبلتها وهذا فهمت اللبو أي مكمل اسمه الأسبوع فقين استوى وكمان تعال إن قاعد كيسام اسمه وإن لا حتى قولوا لك الله شاكر سنوح لها السنة لو مرة ما ينكلوا يبر وحين كبير بيهن أساس كفهم في فدراليزم هذه كبير بيهن وحان إسلايا هاي مدى الصوماليات وهددها دي عزم في رجان إلي ماذا سدك دقا حكومة الكرة دادك الصوماليات وليدي هاي يكون في تالنتس عجائب وليدي حداد dadkeena xoogaa dhinaca u batay haddii aynu gadaal u noqono 69 ka soo bilowno aan ku jirtay adiga aniga saaxiibkay maartay tagaas 69 ilaa 75 wax weyn baa dalka iska bedelay iska wax u qarso isku sid ololihii horumarka reer miyiga oo Soomaalida la tarsigu sameeyay وحصوصنا هاي وين جرى لكن ضد بدن بنا نجري لما جاء كان الصومالية لغات مليانة كان أفضل ما نقول كرو أفضل القرآن لما في دينك وحصل الوضع إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب قدر هدي الشعب كالصومال أي قوستان هوجان كنا وكهر قالوا هوجان كنا وديترمن ياهي midaysan yahay la midaysan yahay doorasho waa gaari kara laakiin if kaasaan haddii dowladayada waan ku dadaalayaa prime minister haddaan ahay in arrintaas aan ku adkaano aan ku dagaalano adinka waxaan rabnaa inaan nagula adkaataan oo nagula dagaalantaan oo nagu garab gashaan intiina waxaan rabnaa in kale in shacabka loo sii sheego لأنه waa wax maslaxa u ah dadka waxa weeyaan xuquuqda muwaadinka waxa weeyaan waxyaabaha awliyaadka ugu muhiimsan waxa weey qofku inuu codkiisa ka dhiiban karo cidda maamulaysa danihiisa iyo mustaqbalkiisa maamulaysa marka inaynu xaqaas ka lumay oo muddo fara badan ka lumay inaan u soo dhicino oo aanu keeno in qofka tuulada jooga uu codkiisa dhiiban karo ay hadda ka bilaaban karto dowladnimada tuuladiisa ilaa kor ay imaan karto runtii waa arrin aad u sharaf badan oo inaanu ku wada xarbino oo qof kasta Soomaali ku xarbiyo waxa loo istaagi karo waxa weeyaan nimankaas nabadiidkooda doonaya inay khaqul geliyaan haddaanu shacab ahaan u shaqeyno anigu markii hore hadalka bilaabaya amniga ma aha wax xukuumadda waxa weeyaan adduunka contribution way hoggaamisaa wax walba laakiin amniga waa wax mid shacabka ka imaanaya marka waxaan isleeyahay haddii aynu ka wada shaqeyno waa hadaf aynu igsan karno aad baa mahadsantahay Ra'iisul Wasaare su'aalan qaadanayna waxaan jeclahay inaan gabdhaha u roonaado maadaama gadaalna la fariisiyo lagana badan yahay marka laakiin raggana waa siinayaa intii shaydu ay qabato ayaan ka gaari doonaa سدامة ووري قبلنا قبلنا قعدت وتعلمت يعني وحجنا يا عبد
Abdullahi inuu ku xijinayo waxaan isku dayaynaa inaan saddex su'aal aan u qaadano markiiba. رئيس الوزراء ما سمح توقع بين الكلية إن في عنده ومركز ماليس في عنده. good si good. دولة اللي قاعد كتير سنة هاي مركز ماليس من بين الدورنا هي قدامي البرلمان كبين 3 ساعة مكشل ودورت. سؤال سنة بوسع على الدور شو مكدر كرتها بين 3 ساعة هذاك جواب دون. تلا waxaan rabay gobolada iyo sidoo bastaan fiican tahay stoka wax ku qoran laba gobol iyo wax ka badan israacaan tirada dib ma lahan laakiin stoka wuxuu qorayaa wuxuu yahay isku soo bilowdan laakiin waxaan ogaadin inaad ka bilowdeen kor bad madaxtooyadii dadka ka qorteen oo u dirteen marka dadkii deegaanada jiray halkay ka ahayd dadkana dhex tagtaan oo ayaga jaanis u siisaan cidda ay u arkaan inay madax u noqoto ama xataa technical committee u noqoto ayaga in la warsado ilaa wax la maamulo waa ayaga waxaan halkaa u arkaa inaad qaybtii idinku aad naan lahayn oo dadku lahaa idinku qaadateen maadaama asaas yeesheen ma kula tahay inay sidaasi noqonayso sidii saxda ee dastuurka waafaqsaneyd waxaad soo qaaday dhinaca dhaqaale xumada iyo maaliyadda dowladda adiga aad madaxweyne ra-iisul wasaaraha u tahay wuxuu canshuur ka qaadaa dekedda muqdisho kaliya dalkana wuxuu leeyahay dekede kale oo dowladda hoos yimaado sida tan Kismaayo oo kale tan Puntland xuquuqda kale xukuumaddana waa loo sameeyahay kolay ku tahay agaasima waaxid waxaa lagu dhisaa 4.5 maxaa diiday marka in dekedaha kale dowladda contribution uga yimaado aan kusoo gabagabay gobolada Soomaaliya sanac mar walba wax lagula dagaalamaa calanka buluuga waxaa la dagaalamaa qolo kale oo calanka la wadato waan fiirsanaa mar walba wax lagu haystaa calanka lagu haystaa waxaad noo baahateen calanka inaad difaacdaan iyo ciidan ra'yiga dowladda kaadana weli lama maqla goboladaas bolisiga dowladdaada kaleedana weli lama maqla afar su'aal kaliya weydiisay Saddam